waxa uu bilaabay ninkaasi in uu joojiyo cuntada iyo biyaha uuna qoray buugaag fara badan. dhakhaatiirtii ficiisa ahaydna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal cusub. waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa muuqaalkeenna ibnu siina. waxa uu ahaa ibnu siina aabbaha cilmiga caafimaadka. waxa uu ahaa hoggaanka dhakhaatiirta. magaciisu waa abu cali al-xuseyn ibnu cabdulaahi ibnu xuseyn ibnu cali ibnu siina. waxa uu yaraantiisii bartay qur'aanka kariimka isaga oo dusha ka xifdiyey. waxa uu ku soo beegmay wakhtigii dahabiga ahaa ay muslimiintu ku jireen. wakhti waxa uu la jaan qaaday ay muslimiintu ku jireen jawi qurux badan. waxa uu ahaa caalim muslima. waxa uu ku soo caanbaxay cilmiga caafimaadka. waxa ay u yaqaanaan reer galbeedku afasiina. waxa uu ahaa falsafadyahan, qoraa, gabya. waxa uu yaqaanay cilmiga xidigiska. waxa uuna qoray buugaag fara badan. waxa uu ku dhashay tuulo lagu magacaabo afashiina. waxa ayna u dhowdahay bukhaara. waxa ayna ka tirsan tahay dalka usbekistan. waxa uu dhashay wakhti ay ahayd taariikhda islaamku 370 hijriga. ibnu siina aqoontiisa qiimaha badnayd gaal iyo islaamba waa laga faa'iiday. waxa uu daaweeyey amiirkii bukhaara. dhakhaatiirtii ficiisa ahaydna xanuun ay afgaran waayeen. waxaa loo oggolaaday in maktabadda boqortooyada uu wax ku akhristo, isaga oo halkaa wakhti badan ku akhrisan jiray bugaagta. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a in uu maktabaddii dabqabsado, iyada oo dadkii ka soo horjeeday ay ku eedeeyeen inuu ka sugubay ibnu siina. waxa ay dhaheen isagaa uu ka sii walakac u gubay si aqoontii uu halkaa ka helay isaga ay ugu koobnaato. ibnu siina waxa uu qoray ku dhowaad 240 buug isaga oo kaga hadlay bugaagta cilmiga daawada. kutubta uu ka qoray caafimaadka waxaa ugu caansan kitaabu shifaa iyo alqaanuunu dibbi. bugaagta waxa uu ku faahfaahiyey ama uu kaga hadlay xanuunada ku dhaca bani'aadamka. ibnu siina waxa uu aad ugu xeeldheeraa xanuunada dhimirka, التحليل النفسي. ibnu siina waxa uu daaweeyey nin dhimirka ahaa oo markaa isku arkay inuu yahay lo ama sac. ninkani waxa uu mar walba dadka ka codsan jiray in la gowraco maadaama uu isku arkayey inuu yahay lo. waxa uu bilaabay ninkaasi in uu joojiyo cuntada iyo biyaha isaga oo markaa damacsan in la gowraco. dadkii ku hareeraysnaana ama kaagala yaab ayay la noqotay qisada ninkan. dadkii ehelkiisa ahaa aad ayay ula yaabeen maadaama uu cuntadii joojiyey biyihii. waxa ayna garan waayeen waxa ay ku tilmaamaan. ninkani mar walba waxa uu ka codsanayay dadkii ag fadhiyey in ay gowracaan. dhakhaatiir fara badan ayaa loo geeyey, laakiinse nasiib darro waxba kama aysan qabanin. waxaa la gaadhsiiyey qisada ninkan ibnu siina, waxaana loo sheegay inuu ismooday inuu yahay lo. ibnu siina markii uu warku gaadhay waxa uu u soo qoray fariin. waxa uuna ku dhahay waan ku iman doonaa waana ku gowrici doonaa. waxa uuna ku dhahay isa sii diyaari waan soo socdaaye. ibnu siina waa u yimaaday isaga oo midi gacanta ku sida. waxa uuna ku amray dadka ag fadhiyey in lugaha laga xidhay qacmaha si uu u gowraco. waxa uu taabtay jidhkii ninka. waxa uuna dhahay lo'dani aad ayay u tabar daran tahay, mana la gowrici karo, wax anfacana aadamaha uma lahan. waxa uuna dhahay waxaa loo baahan yahay in la siiyo cunno fara badan iyo biyo inta aan la gowricin ka hor in la naaxiyo. ninkii waxa uu bilaabay inuu cunto fara badan iyo biyo cabo. waxa uuna yeeshay awood fara badan isaga oo markaana aqoonsaday inuu yahay nin caadiya. sidaas ayuuna ku caafimaaday. ninkii waxa uu bilaabay inuu maskaxdiisa ka saaro in uusan ahayn lo iyo maalawaalkii fara badnaa. ibnu siina waxa uu odhan jiray maladu waa qayb ka mid a cudurrada, sabarkuna waa tallaabada ugu horraysa ee caafimaadka. waxa uu geeriyooday 428 hijriga. waxa ayna ku beegnayd 1037 miilaadiga. waxa uuna jiray 58 sano.
waxaana lagu aasay magaalada Xamdaan ee dalka Iiraan. Wakhtiga uu noolaa waxa uu noqday wakhti lagu faano cilmigiisa iyo aqoonta uu dunida kaga tegay.